Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cano wanaagsan meel kastoo joogtaan is walbood ila socotaanba walaalaha reer dhaqankaaba waan idin salaamay. Salaan kadib maanta waxaan idin wadaa mowduuc ku saabsan ragga miyiga marka ay socdaalka galaan waxa loo yaqaano dhigaal, yacni ragga waxyaabaa loo dhigaaliyo marka ay socdaal galaan ama ay safar galaan ama meel uun ay qabtaan dee maxay dumarka reer miyiga u samey jireen inkastoo hadda marka qaar ay jiraan laakiin aad moodo in sidoo hore wax iska bedeleen. Maanta waxaan isla baranaynaa dhigaalka muxuu yahay, ninku markuu gurigiisa ka socdaalo wuxuu ugu imaan jiray ayaan doonaynaa inaan isla barano. Soo dhawaada mowduuca haddaan hore usii galo, berigii hore haddana way iska jirtaa laakiin ma badna. Waxaa dhaqan ahayd gabadha reer leh ee meel degan marwada dhaqan u leeyahay ninkeeda marka uu socdaal galo xoolo baadiya uu raadiyo ama dee meelo kore dee socdaal wax la yiraahdaa ama safar dee meelo uu ku dhaxayo ninku uu muddo ku maqnaanayo waxyaabo waxaa jira gabadha guriga loogu yimaado oo ay u sameydo waxyaabaha marka maahan cunto la karinayo dabka la saarayo marka loo kacayo maahan waa dhigaalkii ninka ama odaygii reerka dhigaalkiisa ayaa la yiraahdaa. Isla arki doonaa ninkii uu yimid sida hadda idiin muuqata muuqaalkan jinin yar baan u sameeyay markuu yimid odaygii reerka uu yimid safar bacdaas uu sidaa waxaa ku jira bacdana isla arki doonaa waa la idin tusayaa. Marka wiilka horta eedaan oo ahay masha Allah gabadhi marka loo yimaado saa dee gogashi waa iska sii diyaarsaneed waan iska sii diyaarnay la muuqaal baan sameynayay markuu odaygu soo yimaado gogashi saa loo soo bixinay gogol gooni uu leeyahay oo dee dadku kaga jiifan marka lagu seexdo dee goglihii la yaqaan laakiin waan ka xunaa maanta dee xasiiga ama dirinta ayaa bedelay goglihii marka la sameey jiray ragga marka ay ku seexan jireen mariinka lahaa quruxda badnaa. Marka gabadhu markay sida uu ninkuba u yimaado ama odayga reerka waxay gogol bay u dhigaysaa kadibna waxaan ku yiri dhigaalkii way u soo bixinaysaa xilligu doona ha yimaado. Marka dhigaalka dee xilliga marka adigu yimaado ama waxa laga yaabaa xilliyada qadada iyo cashada waxa xilliyaan xitaa inuu iska yimaado waxaa laga keenayaa dee wax marka loo dhigay sida hadda joogaas oo kale waxaa ku jira oodkici ama luqmadii sida u taqaaniinba waxay ka mid tahay marka waxyaabaha gabadha gurigeeda laga heli jiray ceeb bay ahaa jirtay gabadha inta ninkeedu dee safar ka yimaado in guriga uuna waxba ugu imaan waxyaaba aad ceeb ah ay ahaa jirtay laakiin waqtiyadan anigu miyiga waan arkay miyay badan sidii hore xaalku ma ahan inkastoo wallahi la iska barwaaqaysan dee guriga cuntooyin iska taalo markuu ninku yimaado baasti bariis iyo wixii magaalada laga cunay wax walba dee lagaga soo tuurayo dadku iska barray magaaloobeen bariga hore dee cuntada la cunayo waxyaaba raashimada iska yaraayeen ninkuna markuu socdaal galo laga yaabo inuu geel raadiyo kale muddo uu ku maqnaado laga yaabo inuu sahan wax sahmiyo kale meeshii meel roob leh uu sahmiyay yacni uu iska daalan yahay meel kale ayuu ka yimid gabadhu marka gurigeeda caano iyo maxay tahay hilibka oodka ama luqmada ayuu ugu imaan jiray hadda hilibkii waan u dhignay sidaa ujeedid luqmadii ama oodkii waa ka xagga loo dhigay dhiishaasna waxaa ku jira dhigaalkii caanihii dhigaal baa la yiraahdaa dee odaygii baa loo dhigay wixii kale u garanaysaan soo qora. hadda korba sheeko caruureed baa markaan yareen ku sheekaysan jirnayo dhabad shimbirta dhabada la yiraahdo ayaa waxay leedahay waxay lahayd dhiilay caanaha ku dhigaalsato odaygeeda dabagaalo odaygeeda ahay bay ugu dhigaalinaysay marka waxaa la yiri dawaca u timid waxay ku tirina adigu dee dhuuntaada dheer caanaha ku dhigaaliya aniga dhiisha isii yacni way ka sirsiratay waa iska sheeka caruureed dhiishii baan furay la dagaalamay marka dawacadii markii dhiishii ka qaadatay dee dhuuntiiba caanihi ku dhigaalisay kadibna dabagaalihii baa yimid oo na hadal buu yiri oo uu salaanta iga qaado ilaa iyaduna caani baa dhuntii ugu jiray marka uu ku qasbaday inay hadasho markii hadashana dee caani bay laqaysaa moogtahay kadibna markii caani laqday buu ku yiri na hada dhigaalkii soo bixiyay uu ku tiray soodiga laq yiri inta iska sheeka ciyaalaad bay wallahi taa carruura waxyaabaha xigmad leh marka miyi ka jiray lagaga sheekay jiray caaniga garoorka waa la ruuxaya caanaha marka hore waa caana garoor ah oo caana ariyo fadhiya marka caanahana waa la dhigaali jiray dhigaalka aad ugu fiican yihiin halka odayga waxaa la siinayaa hilibka iyo shaaxa iyo caanaha uma dhinna masha Allah waxyaabaha gabdhaha runtii waxaan dhihi karaa hadda yaraaday ay ka mid yihiin wayna wanaagsan tahay wallahi in dhaqankii hore la soo celiyo maxay tahay raggeenana dee qiimo loo yeelo kale ragga mar walba way qiimeysan yihiin laakiin dee bariga hore ragga way ka duwanaayeen caruurta yacni aad bay uga duwanaayeen iyo guriga dadka ku nool wax gooniya ayaa loo sameey jiray wax gooniya ayay lahaa jireen laga yaabo dumarka qaar inay dhahaan maxaa kaga duwan yihiin raggu dee rag waa raggii soo shaqeynayay soo tabcayay soo dhibaatoonayay marka way mudan yihiin dee in wax gooniya ay yeeshaan marka qaar
si walba tahay waa ka odagii reerka halkaa marna caanii dhigaalka garoorka caabaya marna luqmadii maasha allah markaa ragga sidaas ay u nafaqaysan jireen runtii anagoo yar marmar baan walaa xusri jiray alla yaa ninkaa dhiga alla ragga loo roonaa markaan aragno dee wax ragga loo dhigdhigayo laleeyahay ninkii baa le intaasna iska kaftan casriga isbedel waxay tahay berigii hore gabadha iyo wiilka meel wax kuma wada cuni jirin sida hadda halkaan kaga muuqata dee xaajiyadii iyo xaajigii waxbay isla cunayaan laakiin berigii hore dumarkii hore waxay sugi jireen dee ninku markuu soo reebo in badan ay daawanayso dee kuley way garanayaan aabaha wuxuu soo reebaa la gaadgaadi jiray ma fahanteen laakiin maanta way isbedeshay xaaladii lasla cunteynaya lamaanayaashii waa la yara ilbaxay wayna wacan tahay maasha allah way wanaagsan tahay marka waa ka halkaa waxaan kala arurinaya alaabtii oo dee odaygii aniga xilli casri soo dhaweeyo waxaan la furaya markii hadiyadii waxaa ceeb ahaa jirtay markuu ninku magaalada aado inuu isagoo gacan maran yimaado halkaa kabaa liiga soo iibiyey kabaha dad badan baa dheen horta kabaha iskama dhigtin kabaha miyiga dhan baa laga xirtaa mid kale anu waan jecelahay anagaa jecel dooqayga way kabayo kale magaalada way buuxaan laakiin waa kaba aad u fiican markaa kabahaas baa laga soo iibiyey iyo wax kale meesha ku jira wallaahi waa wax aad u wanaagsan ninku inuu xaaskiisa wax u soo iibiyo waxyaabaha miyiga markay arto dhaqankeena aad u wanaagsan gabadho dee inuu ninku ka fakerayo waxyaabay u baahan tahay usoo iibinayo anigu runtii way ila qurux badan tahay yaa aad bay ila fiican tahay ragga miyiguna way ku ammaan yihiin inay mar walba dee mas-uuliyadooda ay reer xaasaskooda ay waxyaabay u baahan yihiin ay u keeniyaan hadday dharkii tahay hadday kabii tahay hadday wax walba tahay marka kabahaasa kamid a hadiyadii la ii keenay hadiyad maa laleeyahay horta dee hadiyad magaalada laga garanaya maxaan kaloo irahdaa hadiyad ma jirtee baahi baa wax loo soo iibsadaa diraca quruxda badane loofku saa uga xardhan yahana dee waa la ii keenay maasha allah maanta waxaan iska dhigayaa dee salaan odageeda usoo adeegaan iska dhigaya wallaahi waxaa muhiimadda kilibkan ugu talagalay waxay tahay dee in dumarka inaan intusoo ragga miyiga joogay sida sidai xaasaskooda ula dhaqmaan iyo waxyaabay u keenaan iyo weliba dumarku siday raggooda u qiimeeyaan muhiimaddu taasay ahayd waana dhaqan aad u wanaagsan oon lahayn maasha allah diricu anigaas ku cabiraya ka warran bal gabdho iga eega diricu miyuu qurux badan yahay xaajiga dooqiisa ka warrama maasha allah si walba ay ahayd waxaan leeyahay lasoo celiyo dhaqanka gabdho xaajiyadiina dee u roonaada oo dee waxyaaba gooniya marka qaar u sameeyo qiimeeya odaygii reerka waa ninkii intaa dee reerka usoo tabcay raggana waxaan leeyahay dee dumarka idinkuna wax usoo qaada gacmo marana ku imaanina guriga oo xaajiyada wax u keeno wax usoo qaada si walba aad markaa muuqaalka intaanan ugu talagalay walaalaha qaaliga ay ugu xiran mar walba aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan aad igu xiran tihiin sida wada ogtihiin safaradeedu iska badnaayeen maalmahan meelo badan baan tegayay hadday koonfur tahay iyo hadday somaliland tahay oon haddaba aan imid runtii horta koonfur waxaan doonaynay markii hore inaan kasoo sameyno muuqaalo badan oo bilicdii iyo maxay tahay dee dhulkii kheyraadka intaba lahaa indhaha u roonaa laakiin caqabado badan oo kala kulanana doonaynaa halkaan kusoo gudbiya ayaa jiray caqabadaha ayaana igu kalifay inaan wax badan halkaa hakad ka gelino oo noo suurtageli weyda muuqaaladeena inaan sii wadano waana caqabado wadanka oo dhan ka jira dhibaato ma lahan oo maalin baa laga bixi doonaa insha allah haddana waxaan joogaa somaliland maasha allah asxaab badan oo aad fariima igu soo diray waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida looda ogyahan anuu gabar baadiyaan ahay waan ka cudur daaranayaa magaalada asxaab badan inaana kula kulmi karin ama aanan saa usoo dhexgelin raya magaalka sidoo kale wadanka xilligii roobaadka dib buu u dhacay waa iska roobla-aan badan baa jirta ilaa idmana muuqaalo badan ayaan idin soo gudbi doonaa mar walbana aan kaga mahad celinaya taageeradiina meel kastoo joogtaan dadkii galgaduud ilaa iyo qeybo kamida Ethiopia ilaa iyo koonfur ilaa iyo somaliland hadda inta ay la socdaan waxaan leeyahay wallaahi dad waxaa tihiin aan amaalkooda wax lagu guda aanan garanayni waan idiin ducaynayaa in ilaahay qof walba hamigiisa uu siiyo intaan ku kulmi doono mawduuc xiga sidaas iyo nabaadiino